الله أكبر. xabaalaha masallaha ee koonfurta caasimadda Hargeysa waxaa aas qaran loogu sameeyay alla naxariistii jannaha ka waraabiye taliyihii ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo gaas marxuun Cabdilaahi Fadal Iimaan oo habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday isbitaalka Hargeysa International ee caasimadda Hargeysa. jinaasada marxuumka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, shirgudoonka golayaasha sharci dejinta, hoggaanka asxaabta siyaasadda, xubno ka mid ah golaha wasiirada, badi taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland, culimo awdiin, ganacsato, madax dhaqameed iyo dadweyne aad u tiro badan oo iskaga kala yimi deegaanada kala duwan ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacbiga reer Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sidaba ka tacsiideeyay geerida ku timi taliyihii ciidamada booliska Soomaaliland marxuum Cabdilaahi Fadal Iimaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka waramay sooyaalka waxqabad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu marxuumku ku lahaa. sareeyagaas Cabdilaahi Fadal Iimaan ilaahay naxariistana ka waraabi wixii muslimka horeena Allahu naxariisto inagana ilaahay haynagu daba naxariisto. qaranka oo dhan waa ka tacsiideynaa, ciidamada qarankana waa ka tacsiideynaa, ciidanka booliiskana gaar ahaan baan uga tacsiideynaa oo taliyahoodii ahaa, carruurtiisii waa ka tacsiideynaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa halkiisii cawl khayr qaba in qoyskii iyo ehelkii uu guriyo. marxuumka waxa aynu maanta halkan u joognaa ilaahay u baryo inuu jannadii ka waraabiyo. dhammaanteen jamaca intaa leeg ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu naga aqbalo in jannadii firdawso ku waraabiyo. waxaynu ku soo koobaynaa ninkaasi qaranku buu shaqaynayay intuu noolaa 30 sano u dambeeyay Soomaaliland maalintii la aasaasay ilaa maanta. waxaan u maleynayaa nabadgelyada nin la mid ah mooyin uga badsay dhisideedii ilaalinteeda inuu jiray. sarkaal hoosu ka soo bilaabay iyadoo station jirin, iyadoo xabsi jirin ayuu ka soo bilaabay. stationka raggii horreeyay fariistay oo ahaa ilaa maanta ciidanka dhan ee sareegaas uu ka dhismay intaas soo taliyo soo shaqaysana operation kumbo ahaa. hawlgelinta telefoonkiisu ma damayn, ma seexanayn, ma nasanayn, nabadgelyadu buu taageeray hariyabe. ilaahay uu ka abaal marin doonaa, ummaddiisuna ilaahay bay u baryaysaa. taariikh ifka oo wanaagsan uu ku leeyahay oo halgan dalkiisa qaranka u dhisaya. ilaahay waxaan uga rajaynayaa jannadii firdawso ka waraabiyo. shirgudoonka golayaasha sharci dejinta, xubno ka mid ah golaha wasiirada, asxaabta siyaasadda, xubno magacyadooda ku hadlayay iyo mudanta bulshada Soomaaliland ayaa jinaashada dusheeda kaga waramay doorka wanaagsanaa ee marxuun Cabdilaahi Fadal Iimaan uu ku lahaa adkaynta iyo horumarinta nabadgelyada dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaanka horumarineed ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu 30 sanadood ugu dambeysayba ka howlgelayay ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaheeda kala duwan. Cabdilaahi Iimaan Fadal sabriye Iimaan qoyskiisii eheladii iyo gidigeenba qaranka ilaahay sabriye Iimaan haynaga siiyay. nin weyn baa hoyday, ma aha uu janar buu ahaa, nin weyn baa hoyday, dhismaha qaranka ka qayb galay, hawl badan buu soo qabtay. dad badan oo qaranka u shaqaynayay dhibsaday baa laga yaabaa inay jiraan. inteen halka joogtay inta kala maqlasaba waxaan weydiinayaa cafi iyo saamax inay cafiyaan oo saamaxaan. waxaan tacsiideynayaa dhammaan qaranka, madaxweynaha, xukuumadda, dhammaan ciidanka biliiska, saraakiisha, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda. waxaan kaloo tacsiideynayaa dhammaan noocyada ciidamada. waxaan tacsiideynayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegey, xaasaskiisii iyo carruurtiisii, reer Fadal oo dhan, reer Xuseen Iimaan. waxaan tacsiideynayaa carruurtiisii iyo xaasaskiisii. waxaan tacsiideynayaa Cabdilaahi Dareewal walaalkii ahaa. waa nin madaalo ah oo hawlkar ah oo yar tahay maanta. waxaan isleeyahay inay ragga la midiin inay ku yar yihiin waddanka. hawsha qaranka door weyn buu ka soo ciyaar. waxaan ka tacsiideynayaa naftayda iyo ummadda Soomaaliland oo dhan reerku ka tegey. cid walbaan ka tacsiideynayaa walaalkeen Cabdilaahi Fadal Iimaan. waxaan ilaahay ugu baryaa inuu jannadii ugu deeqo. Cabdilaahi Fadal Iimaan ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii firdawso ha geeyo.
wuxuu ahaa halyey qaran oo qarankan ka baxay waxaanu ekownahay oo ilaahay u tasaw taagan oo dambi dhaaf u weydiinaynaa taliyihii ciidanka bilayska sagayagaas cabdulaahi fadal iimaan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qaranka jamhuuriyadda somalilan oo u horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dhammaan ciidamada dalka booliska dhammaan shacbi weynaha ehelkiisii intaasoo dhan ilaahay samriye maan saadiqa inaga siiyo xusuus gaara waxaa la isagoo dhiyuutiga ku jira oo shaqadiisii gudanaya oo actifa ayuu haddana ku dhintay waa xusuus gaara 11 sannadood isagoo shaqadiisii ku jira u dhintay ilaaha u naxariisto waxaan tacsi aanu u dirayaa horta madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa iyo shicib weynaha somalilan oo dhan waxaan leeyahay nin qaaliya ayaa niga baxay anaa ku hadlay afka xisbiga wicid waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan qoyska dhammaan shacbi weynaha reer somalilan gaar ahaan ciidamada bilayska iyo carruurtii iyo xaasaskii ka tegey wuxuu ahaa nin feejigan oo u soo jeeda hawsha ciidanka booliiska hameen iyo maalinba dhammaanba booliiska qaranka ciidamada qaranka dhammaanba ummadda reer somalilan waxaan uga tacsiyeynaynaa in ilaahay samiriye iimaan inaga siiyo allah u naxariisto cabdulaahi fadal iimaan wuxuu ka tegey wuxuu ahaa aabbe ka tegey ifka kaga tegey 2 xaas iyo 22 carruura ilaahay ha u naxariisto ciidanka booliiska somalilan wuu xusuusnaan doonaa geesta kalena waxaa aas qaran loogu sameeyey magaala madaxda gobolka togdher ee burco rabbi naxariistii jannaha ugu deeqa ee gaashaanla sare marxuum jaamac digaale ducaale oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan allaha u naxariistay waxa magaalada burco aas qaran loogu sameeyey gaashaanla sare jaamac digaale ducaale oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka qaranka ee somalilan oo muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada burco ee xarunta gobolka togdher aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka togdher ka degmada burco saraakiisha ciidamada qaranka somalilan iyo sidoo kale booliiska iyo madax dhaqameed iyo dadweyne kale oo reer burca waxaanay mas-uuliyiintii ka qayb galay aaskaasi qaran ee loo sameeyey gaashaanla sare jaamac digaale ducaale ay ka warrameen taariikhdii iyo sidoo kale doorkii uu ka soo qaatay dib u dhiskii dalka waxaanay tacsiin tiiraanyala u direen ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaanba shacbiga reer somalilan iyagoona si gaara uga tacsiyeeyey qoyskii iyo qaraabadii ka baxay gaashaanla sare jaamac digaale ducaale oo ku geeriyooday magaalada burco taariikhdii waddankan kulaha waa laga soo sheekeeyey wuxuu ahaa raggii dhidibada u taagay ciidanka qaranka inna lillahi wa inna raajicuun halkan waxaan tacsiyad tiyaarada ugu diraynaa marka ugu horeysa jaamac digaale ilaahay kitaabka midigta ugu dhiibo korneyl jaamac digaale oo dalka iyo diinta iyo qarannimadaba magac weyn ku lahaa maanta ilaahay qadaray qabriga allah u nuuro waxaan kaloo halkan tacsi uga dirayaa muxuu ahaa janankii ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan cabdulaahi fadal iimaan oo isaguna ku geeriyooday hargeysa jaamac digaale ducaale ilaahay ha u naxariisto ilaahay camalka ha u fududeeyo tacsi guud iyo tacsi gaarba min qoys ilaa qaran ilaahay samiida iimana ka siiyo waridu xaq weeye waynu ku wada xukumannahay jaamac digaale ducaale korneyl jaamac digaale ducaale ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro isaga maanta ducadaa waxuu ahay ilaahay qowlka san ha u afay ilaahay sidaasaynu uga baryayna waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda somalilan si gaara waxaan uga tacsiyadaynaya ciidanka qaranka u ka tirsanaa maanta awoodna waxaa jira inaan ilaahay u weydiino inuu ilaahay godka u nuuro awood kaloo maanta inagu aynu leenahay ma jirto jaamac digaale wuxuu ahaa xubnaha ugu muhiimsan ee qarankan tacabka badan ku lahaa qaranka ka mid ah ee uu ku jiray taliyihii guud ee ciidanka bilayska cabdulaahi fadal iimaan inta bugtana ilaahay caafiyan iimaan hanaga siiyo leenahay ilaahay sabir iimaan hanaga siiyo waxaynu joognaa aaskiisii jaamac digaale ducaale korneyl jaamac digaale ducaale ubadkiisii qoyskiisii qaraabadiisii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan meel kasta uu joogo geeridaa ku timi marxuumka ilaahay u naxariisto ushaaweye uu ahaa addoon dadka ururiye uu ahaa addoon wacyigelinta iyo waxusheega u wanaagsan buu ahaa runtii rag aasaaska u dhigay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan buu ka mid ahaa ilaahay u naxariisto maanta waxaan joognaa aaskii jaamac digaale ilaahay ha u raxmado ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws uu ka waraabiyo qofku markuu noqdo ducaan buu u baahan yahay waxaan ilaahay erga uga nahay ilaahay inuu dembigiisa dhaafo ilaahay inuu naxariisto innagana samir iyo iimaan ilaahayna ka siiyo qaybaheena kala duwan haddaan nahay qaranka haddaan nahay ciidamada iyo haddaan nahay reer togdheerba carruurtii iyo xaasaskii iyo faamilkii uu ka tegey iyagana samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo khaliil barraawraan TV-ga qaranka somalilan magaalada burco wararka ka soo gaadhaya gobolada iyo degmooyinka dalka ee la xiriira tacsida loo dirayo
siiyo rabbi naxariistii jannaha ugu deeqo ee taliyihii ciidanka booliska somalilan sarreeye gaas cabdulaahi fadal iimaan ee soo gaadhaya xafiiska warqabadkana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ayaa maanta tacsi u diray guud ahaanba qaranka dalka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan ciidanka booliiska iyagoo ka tacsiyey geeridii ku timi alla naxariistii jannaha ka waraabiye taliyihii guud ee ciidanka booliiska ee dalkan jamhuuriyadda somalilan sarreeye gaas cabdilaahi fadal iimaan oo habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday magaalada hargeysa wuxuu ahaa taliye ku suntan wanaag iyo ixsaan oo qarankan raggii halkan soo gaadhsiiyey ka mid ahaa waxaan ilaahay uga baryaynaa wanaaggii faraha badnaa ee ummaddan u qabtay ee qaranka nabadgelyadiisa oo habeen iyo maalin u soo jeeday in ilaahay abaalgud uga dhigo ilaahay subxana watacaala uu kaga fogeeyo cadaabaha waxaan ilaahay subxana watacaala ka baryaynaa in somalilan bedel kheyr qaba iyo cawd kheyr qaba oo ka wanaagsan halkiisina inoogu soo bedelo isagana naxariistii janna ilaahay siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa waxaynu markhaati ka wadanahay oo reer somalilan oo markhaati ka yihiin inuu danta qaranka habeen iyo maalin ahaa taliyaheegana u soo jeeda waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi mandhinte waa raxmaanka qof kastoo bini aadam waa dhimanaya wixii uu shaqaysto baana ka horeeya waxaan leenahay wax wanaagsan ayuu addoonkaas shaqaystay ilaahay naxariis jannaha siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaanu halkan tacsi tiiraanyele uga diraynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi janankeenii taliyihii ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan oo aan marka hore guud ahaanba shacbiga reer somalilan ka tacsiyadanayno annaga oo ku hadlayna codkii maamulka gobolka saaxil ayaanu tacsi tiiraanyela u diraynaa waxaan gaar ahaan usii tacsiyadaynaynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegey oo aan leenahay samri iyo iimaan allah idinka siiyo waxaa kaloon tacsi usii diraynaa oo labaad dhammaanba ciidanka booliska kala duwan oo aan leenahay samri iyo iibaan runtii jananku wuxuu ahaa maxaanku nin ku suntanaa daacadnimo iyo howlkarnimo oo qarankan maxaanku dhaha dhismihiisii ka soo qayb qaatay oo meel fiican soo gaadhsiiyey runtii annagu muddo badan baanu isnaqaanay howlo fara badanna intaanu jananka noqon baa waanu soo wada shaqaynay wuxuu ahaa nin daacada oo dadka u dabaxsan sharcigana ku adag ayuu ahaa naxariistii janna allaha siiyo qabriga allaha u nuuro maxaanku dhaha allaha u gargaaro maxaanku dhahdaa ehelkiisa iyo qaraabadiisina samri iyo iimaan allaha ka siiyo mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan gudoomiye ku-xigeenka gobolka daadmareedhahna kusimaha gudoomiyaha maxamuud cali axmed jubba iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka gaashaanla dhexe cali ismaaciil faarax ayaa tacsi u diray allah u naxariistay taliyihii guud ee ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan oo habeennimadii xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa waxayna gudoomiyaha iyo taliyuhu geeridaasi ka tacsiyadeeyeen guud ahaanba qaranka jamhuuriyadda somalilan ciidamada booliiska iyo weliba eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay taliyuhu إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحا حالته وبشو هاي كوغيريودي عصبتك انترلاشن تليه عيدا كبليسكا جمهورية الصوماليلان ها به بليسكا أوروريه أي تبي دونان ضد بدن أو بليسكا كترسن إلا أوبتك وحان تعسو دريا qaranka somalilan aan ka tacsiideynayaa geerida naxdinta leh ku timi taliyihii ciidanka bileyska jamhuuriyadda somalilan waxaan tacsi u dirayaa saraakiisha bileyska saraakiil xigeenka dowleyda xaasaska iyo caruurta iyo dhammaan shacabka somalilan aan uga tacsiideynayo geerida naxdinta leh ee nagu timi ciidanka bileyska ama jamhuuriyadda somalilan oo dhanba ku timi ama ku timi shacabka somalilan inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay naxariistii janna isagana ha ka waraabiyo innagana samir iyo iimaan dhammaantaynba haynaga siiyo jarnaalkaas sarreeye gaas cabdilaahi fadal iimaan 9 sannadood marna ahaa hogaanka howlaha marna ahaa taliyaha ciidanka ilaa kasoo bilaabay bilowgii 300 ugu horreeyey ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan ilaa halkaana soo gaadhsiiyey ka bilaabay ururintii ugu horreysay ilaa maanta marka waxaan leenahay abaal badan iyo tacab badan u geliyey dalka
waxaweye dib loo xusuusan doono cid walba ay tegi doonto. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaanu taasi u diraynaa qaranka Somaliland iyo ehelihii uu ka dhintay taliyihii ciidanka booliska Somaliland Cabdilaahi Fadal Iimaan. waxaanu leenahay ilaahay naxariistii janno ha siiyo. ilaahay waxaanu u weydiinaynaa naxariistii janno ilaahay uu siiyo anagoo ku hadlaya magaca gobolka Daadmareed iyo degmooyinkiisiiba. Muuse Salebaan Maxamed, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Oodweyn. الله naxariistay taliyaha guud ee ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xalinta ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Hargeysa ayaa maanta waxa tacsi tiiraayay loo diray maamulka gobolka Sool oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool taliyaha qaybta booliska iyo waliba maayarka degmada Laascaanood ugu horreynna taliyaha qaybta booliska iyo maayarka ayaa halkaasi tacsi uga diray ehelkii qaraabadii ciidanka booliska iyo waliba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxay Allah naxariistay taliyaha Cabdilaahi Fadal Iimaan. waxaan ka diraynaa taasi diiraanyale oo ku dhacday qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka booliska oo taliyahoodii Allah u naxariistay Cabdilaahi Fadal Iimaan sareegaas Cabdilaahi Fadal Iimaan xalay uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa. ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno ummadda reer Soomaaliland dhammaanteedba samir iyo iimaan Allah ka siiyo gaar ahaan ciidanka booliska. kulli anugu هذا البنساء كما يالله وأنا تحسديننا عيدك بليسكا عرورتيسي يحاسس كيسيبا إلهي سبري ما هكسيو بدل خير غوانا هسيو أنت أمرك لقي مادو كل أنت كأغاني إلهي هون حرسه شخص دنتي سكهر مريض دنت جود بها كنا عذك شخص دنت جود كهر مريض دنتيس oo kuna adag buu haruntii ilaahayna waxaan ka baryaynaa bedel khayr qaba Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteed baynu siiyo. ilaahay weyna raajicuun. waxaan halkan tacsi uga diraynaa taliyihii ciidanka booliska Soomaaliland Generaal Cabdilaahi Fadal Iimaan oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. waxaan leenahay tacsi u diraynaa guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada kala duwan ee qalabka sida ciidanka booliska qaraabadii asxaabtii caruurtiisii xaasaskiisii kulli qof walba saacadii ilaahay u qoro uu dhimanayaa. marka waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo. jaranka anu in badan baan aqaanay wuxuu ahaa nin daacada wuxuu ahaa nin shaqadiisa har iyo habeen wuxuu ahaa u soo jeeda oo habeenii maalinba shaqeeya. nin culus baa baxay ilaahu naxariisto kulli qof walbina saacadiisu u dhimanayaa. ciidanka booliskana si gaar ah ugu sii tacsiideynaya. gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiray isaguna halkaasi tacsi tiiraayay looga diray eheladii qaraabadii ciidanka booliska iyo waliba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxay sareeyagaas Cabdilaahi Fadal Iimaan taliyihii guud ee ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. bismillahir rahmaanir rahiim وبه نستعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أقول الله يا مجاعية يا مجاع شعب قبل كالصول وها أنت عسيد كيرانيا لأدريا تليه إذا كبليس كجمهورية الصوماليلاند عبد الله فضل إيمان إن إلهي نحرس جنك ورابيو إهل كيس يا قرابيس يو booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka dhamaantiin oo kala duwanba iyo shacabka samir iyo iimaan ka siiyo. taliye wuxuu ahaa runtii nin dalkiisa u soo shaqeeyay nin dadkiisa u soo shaqeeyay nin qarankan hawl badan u soo qabtay. wuxuu ahaa nin runtii biliiska dhisay shaqo badan ka qabtay. wuxuu ahaa nin saan aan ku aqaan kulay inta badan la dagaalamo waxyaabaha xun dhaqamada xun ee magaalooyinka waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku faafi lahaa wax badan ka qabtay meelo badan ku suntan oo ka hortago xiray. ilaahay taa waxaan ka baryay miisaanka xasanaadka inuu ugu daro ajarna ka siiyo qofkii xumaan la dagaalama oo macaasi suuliya runtii maalinta yawmal qiyaamaha ayuu helaya. runtii qarankan uu tabi doonaa taliyaha laakiin xaqii baa yimid
xaqii baa yimid ilaahay markaa waxaan uga baryayaa inuu isagana bedel khayr qaba inaga siiyo oo mid kasii wanaagsan inaga siiyo dabadii isagana ilaahay samriya iimaan ka siiyo dhammaantiin booliska jamhuuriyadda somalilan iyo ubadkiisii iyo ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaantiin samriya iimaan ka siiyo salaamta وبرخد عمر أحمد وrbaahinta dowladda jamhuuriyadda somalilan baascanood gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali iyo ciidanka booliska gobolka uu hogaamiyo taliyaha qaybta booliska gobolka awdal ayaa maanta tacsi tiiraanyale u diray ehelada qaraabada iyo qaranka somalilan oo ka baxay allaha naxariistii janno ka waraabiye taliyihii ciidamada booliska somalilan sarreeya gaas marxuun cabdilaahi fadal iimaan oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa ee caasimada somalilan waxaana ugu horeyn hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a taliyayaasha saldhigyada booliska gobolka awdal iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka gaashaanle dhexe cabdi cali xayd iyagoona eebba uga barya inuu naxariistii janno ka waraabiyo marxuumka inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi u diraynaa sareeya gaas cabdilaahi fadan iimaan allah u naxariisto samriya iimaanna dhammaanteen allah inaga siiyo ciidanka booliiska ciidanka qaranka iyo dhammaan jamhuuriyadda somalilanba wuxuu ahaa nin qaaliya oo runtii aad u maskax furan nin walba garanayay nin walba wuxuu yahay ogaa waxaan tacsi si waliba gaar ugu diraya maxaa qaranka somalilan iyo ciidanka somalilan ee booliiska iyo eheladii oo ka baxay allah u naxariistay sarreeya gaas cabdilaahi fadan iimaan oo ahaa taliyihii ciidanka booliiska somalilan oo xalay geeridu ku heshay maxaadana magaalada hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan ka taxsuuq direynaa taliyihii ciidanka booliiska somalilan sarreeya guuta cabdilaahi fadal iimaan oo xalifiidkii ku geeriyooday magaalada madaxda hargeysa waxaan taxsiyaanka uga direynaa taliyihii ciidanka booliiska somalilan oo ahaa muddo dheer ciidanka taliya oo ka soo bilaabay ilaa taliya saldhig ilaa taliyaha guud ee ciidamada jamhuuriyadda somalilan ee booliiska waxaan tacsi u diraynaa ehelkiisii ciidanka booliiska ubadkiisii iyo asxaabtiisii raajicuun waxaan tacsi u diraynaa haddaan lahay ciidanka booliiska gobolka awdal marxuum jenaraal cabdilaahi fadan iimaan oo ahaa taliyihii ciidanka booliiska somalilan oo waxau ahaa sargaal eges police investigationa oo sharci yaqaana waxaan halkan tacsi tiiraaya looga dirayaa taliya ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan sarreeya gaas cabdilaahi fadan iimaan oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kulli nafsi daaqatu mawt qof kasta uu dhimanayaa waxaan u tacsiyeynayaa jamhuuriyadda somalilan ciidanka booliiska eheladiisii waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan ciidanka booliiska somalilan waxaan kaloo ka tacsiyeynayaa jamhuuriyadda somalilan dhammaantood eheladii iyo qaraabadii iyo xaasaskii uga tegayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wuxuu ahaa nin aad iyo aad shaqada ugu adag howlkara oo seexan oo soo jeeda har iyo habeen anigoo ah taliyaha qaybta booliiska gobolka awdal gaashaanle dhexe cabdi cali xayd waxaanu halkan tacsi tiiraanyada uga diraynaa taliyahayagii ciidanka ee qaaliga ahaa sarreeya gaas cabdilaahi fadal iimaan ku geeriyooday caasimadda jamhuuriyadda somalilan laf waliba maalinunbay dhiman doontaa waxaan uga tacsiyeynayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan ciidanka booliiska iyo eheladiisa iyo qaraabadiisii waxaanaanu ilaahay uga baryaynaa ilo jannatul firdowsa oo uu ka waraabiyo tiiraanyada aan uga diranaa halkan taliyihii ciidanka booliska somalilan cabdilaahi fadal iimaan oo ay u timid geeridii naxdinta lahayd waxaan uga tacsiyeynaynaa marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo intaa kadib waxaa isaguna hadalka qaatay gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali isagoona ka waramay shakhsiyadii allaha naxariistii janno ka waraabiya taliyaha ciidanka booliiska somalilan sarreeya gaas marxuun cabdilaahi fadal iimaan sidoo kalena ka tacsiyadeeya eheladii qaraabada iyo qaranka somalilan ee uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halka tacsiib tiiraanyada uga dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka somalilanba uu ka dhintay jenaraal cabdilaahi fadal iimaan oo ahaa taliyihii booliiska somalilan